muxaadarooyin kala duwan ka daawo TBN Tawfiiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiiq Broadcasting Network. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku jirna suurat lbaqara insha allah ayadda waxaan ka bilaabeynaa 5 ee suuradda. ilahi wuxuu le subxaana wa tacaala wabashir u bishaaree aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaal suuban camal wanaagsan sameeyey kuwa u bishaaree biana lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal. jannooyin ay socdaan hoosteeda iyo geedaha hoostooda ay webiyaal ordayaan. webiyaashii qur-aanka lagu sheegay fiiha anhaarun min maain gayri aasinin wa anhaarun min labanin lam yatagayar طacmuh wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin wa anhaarun min casalin musafa. guryo ay socdaan hoostooda webiyaashaas ay socdaan ay ku yaalin webiyaasha malabka, webi caano ah, webi khamri ah, webi maaragtay biyo aan doorsoomin ah, intaba ay hoostooda yihiin. kulamaa markastoo rusiquu lagu irsaaqo minhaa jannadii xaggeeda min aljanna min thamaratin miro ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala min thamaratin risqan irsaaqsiin lagu irsaaqo qaaluu waxay leeyihin ahlu jannahi haadaa midkan aladii kiibaa rusiqna na lagu irsaaqay min qablu hor adduunkii markaan joognay kii aan ku cuni jirnay waa ilaahay nagu irsaaqay subxaana wa tacaala. wa uutuu waa la siiyey bihi miraha mutashaabihan xaaluu yahay mid isu eg miro isu eg ayaa la siiyey. tufaaxii adduunka iyo tufaaxii jannada, burtuqaalkii adduunka, burtuqaalkii jannada, caadkii adduunka, caadkii jannada, xamurkii adduunka, xamurkii jannada waa la siiyey. waa isu egyahay laakiin dhadhanka waa ku kala duwan yahay. midabku isu egyahay, tashaabuha waxaa xagga midabka isaga egyihiin laakiin waa ka duwan yahay. markay dhadhamiyaan dhadhanka isku mid maha. kan waa geed jannada ka baxay, kana waa mid adduunyada ka baxay. walahum waxay leeyihin fiiha jannada dhexdeeda aswaajun xaasas mutaharatun la daahiriyey ayay leeyihiin. xaasas ilaahay daahiriyey subxaana wa tacaala, wax kasta laga daahiriyey. falxumaa laga daahiriyey, waxyaalaha dumarka ku dhaco caadadii iyo waxa lamidkaa laga daahiriyey. mutahara wahum iyaga fiiha jannadii dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya, jannadaasna weligood ka bixi maaya. taa ugu bishaaraya laleeyahy qofka alla rumeeye camal saalixana sameeyey. allahuma jcalna min rab alcaalamiin. ilahay naga dhiga dadka caza wajal. mu'min camal saalixa sameey intaasuu leeyahay, bishaaruu leeyahay. markuu dhimana xataa waa loo bishaareynaya. waxaa leeyahay ilahay waa u bishaaraynaa subxaana wa tacaala. abshir biladii yasuruk, xadiiska nabiga saxiixa ah saasaa lagu leeyahay. malaa'igta nafta ka qaadayso waxaa le abshir biladii yasuruk, ku bishaaraysa wax kasta oo ku farax geliya. walahum waxay leeyihin fiiha jannadii dhexdeeda aswaajun xaasas mutaharatun la daahiriyey ayay leeyihiin oo wax kasta laga daahiriyey. yacni saasay leeyihiin ayuu alla subxaana wa tacaala. xaasas
laga daahiriyey min alxaydi waalghaa'idi waalbuzaaqi waalnakhaama. saasuu yidhi ibnu jariir atabari, saasuu yidhi. alxaakim wuxuu saxiix yeelay wabna murdaweyhi can abi saciid can nebi sal ly slam fi qowlihi walahum fiiha aswaaju mutahara. hadalkaas wuxuu sheegay, wuxuu yihi waxaa laga daahiriyey xaasaskaas caado ku dhici mayso, dhiiggii umusha ku dhici maayo, saxaro ma laha, candhuuf iyo xaaka male. yani saas cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay laa yaxidna caado kuma dhacdo, walaa yuxdithna xadathna kuma dhaco waxa weysada jebiyo yaryarka neef iyo wax lamidka ah, walaa yatanakhamna ma xaakoodaan. yani sifaati ahli ljanna waxaa soo arooray axaadiis nabiga uu ku sheegay caleyh isalaatu wassalaam tilmaamahooda. ahlu jannahana waa la tilmaamay, qur-aanka waa lagu sifeeyey, laakiin axaadiista aad bay u faahfaahisay. waxay saxaabadu la wariyeen in ahlu jannaha ahluljanna laa yabsuquun candhuuf ma tufaan, walaa yatamakhatuun mana xaakoodaan, walaa yataqawatuun mana saxaroodaan. ilahay saas ule subxaana wa tacaala wahum fiiha khaaliduun, waa kuwa ku waaraya jannadaas oo weligood aan ka tegaynin. ina allaha ilaahay laa yastaxyi kama xishoodo an yadriba inuu yeelo mathala tusaale ma bacuuda kaneeco iyo wax lamid ah. ma bacuuda mathala ma tusaalo wuxuu doonaba ha noqdee, bacuudatan kaneeco famaa fowqahaa iyo waxaa ka weyn. kaneeco iyo wax ka weyn inuu tusaale usoo qaato ilaahay kama xishoodo subxaana wa tacaala. faama aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala fayaclamuuna waxay ogyihiin annahu tusaalahaas alxaqu inuu xaq yahay min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday. sittiinhaa sawjira dhagaytiiteenaaken kan daawatu jirtu kun tbn. waama aladiina kafaruu kuwa gaaloobay fayaquuluuna waxay leeyihiin maada araada allahu ilaahay muxuu ula jeedaa bihada midkan mathalan tusaale ahaan yudilu waa ku baadiyayaa bihi tusaalihii ilaahay sababtiisa kathiiran in badan, wayahdi waa hanuuniyaa bihi tusaalaha sababtiisa kathiiran in badan, wamaa yudilu mana baadiyooba bihi tusaalaha kuma lumo ila alfaasiqiin kuwa faasiqiinta ma ahe, kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay kuwaasa. waxay yidhaahdeen aayaddan waxay kusoo degtay, waxay yidhahdeen qur-aanka maxaa kaneeca iyo loogu soo qaadanaya, kaneeca iyo caaro caaro iyo maaragtay shini iyo wax lamid ah maxaa qur-aanka loogu sheegay? waa wax maaragtay fasaaxadiisii wax u dhimayo aftahanimadii qur-aanka. markaasa ilaahay ayadan soo dejiyey. tusaalaha waxaa loo keenaa in wax laga dhadhacsiiyo oo qofka wax lagu fahamsiiyo, taasaa loo keenaa. marka wax kaneeca iyo wax ka yar iyo wax lamid iyo wax ka weyn intaba ilaahay waa keenayaa si lagu fahamsiiyo shay aadan u jeedin, adiga shay aad taqaano lagugu sheego. ilaa insaanku wuxuu arkay unbuu wax ku gartaa. saasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala jannada marka laga sheekeynayo waxaa leeyahay geedihii iyo mirihii wautuu bihi mutashaabihan, waxaa xaasas waa garanayna, jannada waa garanaysa, gurya waa la garanaya, webiyadii waa la garanaya. laakiin waxa yaala marka tusaalaha ilaahay usoo qaadayo waa tusaale uu rabo inuu ilaahay ku fahamsiiyo qofka, yani shay ilaahay uu rabo inuu qofka la garansiiyo. marka ceeb ma aha, wax laga xishoodana ma aha, marka muminiinta waxay leeyihiin iyagu waxay leeyihin faama aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey fayaclamuuna waxay ogyihiin annahu tusaalaha alxaqu inuu yahay xaq min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahday. waama aladiina kafaruu kuwa gaaloobay fayaquuluuna waxay leeyihiin maada araada allahu ilaahay muxuu ula jeedaa bihada tusaalahan mathalan tusaale ahaan yudilu waa ku lumiyaa bihi tusaalihii kathiiran in badan, wayahdi waa hanuuniyaa bihi tusaalaha kathiiran in badana ku hanuunta. wamaa yudilu mana luma bihi tusaalaha kuma luma ila alfaasiqiin kuwa faasiqiinta ma ahe. aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna buriya cahd allahi ilaahay ballankiisa buriya. naqdiga waxaa lahaa
shay marka la adkeeyo kadib la furfuro marka waxay furfurayaan ballantii ilaahay ay la galeen subxaana wa tacaala waa tilmaanta koowaad oo qofka ku lumaayo tusaalaha ku lumaayo ayuu ilaahay sifaynaya subxaana wa tacaala aladiina kuwaasoo yanquduuna burinaya cahd allahi ilaahay ballankiisa min bacdi miithaaqihi markii ay adkeeyeen kadib ballankii ayay markaa burinayaan miithaaq waxaa la yihahdaa ballanka lagu xoojiyey dhaarta ballanka dhaarta lagu xoojiyey ayaa la yihahdaa marka iyagoo ballan galay haddana dhaar ku xoojiyey ayay haddana furfurayaan oo ay burinayaan dadka sifaadkaas leh waa dadka ku luma qur-aanka tusaalihiisa wayaqdacuuna goynayey maa amara allahu wixii ilaahay uu amray an yuusala in la xiriiriyo waa sifada kale leeyihiin waxay maaragtay goynayaan waxa ilaahay amray in la xiriiriyo subxaana wa tacaala yacni waxa ilaahay amray ay goynayaan maxay tahay yacni ilaahay wuxuu soo amray subxaana wa tacaala in ambiyada dhan la rumeeyo ayaa ilaahay amray subxaana wa tacaala ma rumeynaya yacni qaar ay rumeeyeen qaarna way beeninayaan waxaa la yihahdaa waxa ilaahay amray in la xiriiriyo maxay yihiin waa xifdu sharaa'icihi shareecooyinka ilaahay subxana ilaahay wuxuu jideeyey in la ilaaliyo wa xuduudihi xuduudda ilaahay uu dhigay subxaana wa tacaala alatii amara fii kutubihi almunazala ee ilaahay uu ku amray kutubta uu soo dejiyey wa calaa alsin rusulihi bilmuxaafadati calayha carabka rusushana lagu soo diray in la ilaaliyo fahiya caamatun wabihi qaala aljumhuur marka waxaa loo jeedaa in la ilaaliyo aan la goynin taasaa loo jeeda wahuwa alxaq saasaana xaq ah wayaqdacuuna maa amara allahu bihi an yuusal goynayo waxaa ilaahay uu amray in la xiriiriyo wayufsiduuna fasahaadinaya yani wayufsiduuna fasahaadinaya fi lardi dhulka fasahaadinaya ulaaika kuwa hum ayaga alfaas khaasiruun kuwa khasaaray ah arladana way fasahaadin maxay ku fasahaadinayay bilmacaasi bisafki dimaa dhiig inay daadiyaan inay ilaahay ku kufriyaan gaalnimada wax ka weyn ma jiro yani fasaad iyo yani fisqi ka weyn ma jiro fasahaadinta dhalada waxa ugu horeyso ilaahay keyrkiisa in lagu caabudo subxaana wa tacaala ilaahay keyrkii oo la caabudo waa fasahaadinta arlada ugu weyn gaalnimada waa fasahaadin arlada la fasahaadiyo marka wayufsiduuna fi lard ulaaika kuwa hum ayaga alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah ayuu ilah yiri subxaana wa tacaala kuwa khasaaray waa kuwa khasaaray adduun iyo aakharaba marka kuwaasaa ku luma yani qur-aanka iyo tusaalihiisa kayfa sidee baa takfuruuna ugu gaaloobeysaan bilaahi ilaahay wa kuntum adinku ahaa amwaatan kuwa dhintay fa axyaakum ilaah waa idin nooleeyey subxaana wa tacaala uma haddana yumiitukum ilaah waa idin dilaya uma haddana markaa kadib yuxyiikum waa idin soo nooleynaya uma markaa kadib haddana ilayhi ila llah alla xaggiisa ayaa turjacuun laidin celinaya kayf yani sideebaad waay sideebaad kayfa takfuruuna biاllah ilaahay see ugu kufrinaya subxaana wa tacaala wa kuntum amwaatan idinku aha kuwa dhintay aan jirin mowdkan hadda waxaa loo jeedaa nolol kama horeyn maydaan jiri jirin waxaad aydeen waxaanan jirin oo qofku waxaa soo martay wakti uusan jiri jirinba ilahi waa kan hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shaya madkuura insaanku ma soo maray wakti uusan ahayn wax jiraba oo heblaaye hebel ama hebel la yiraahdo wakti aysan jiri jirin ayaa jirtay marka waxaa la ahaa amwaadaa la ahaa dad dhintaya la ahaa waxaan jirinaan ahayn fa axyaakum ilahi waa idin ahaysiiyey waa idin soo nooleeyey wax jiraa lagaa dhigay ilahay baa saa kaa dhigay subxana wa tacaala barnaamijka nooleysiinta ilahay wuxuu ka soo abuuray insaanka nudfa laga abuuray amshaaji nabtaliihi min calaqatin uma min mudqatin mukhalaqa wagayri mukhalaqa ayaa ilahay haddana ka dhigay subxaana wa tacaala marka waa idin soo nooleeyay alla subxaana wa tacaala waa dhashay
ilmuu noqday waa weynaaday ilaa wuxuu noqday garmadow ilaa waa yeel u noqday markaa uma markaa kadib wamitukum ilah waa idin dilaya subxaana watacaala waa dhimanaysaan Akan gabbaraman Allah malenjiru Khawan ume hunda firesani hiru Hojintiya yamu ilmana ma hunda Gabbarti birarra fara rabbi gudda جرون الدنيا تنبرت صباتي تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن dhimashadiina wax diidi karaa ma jiraan oo dhahaya aniga ma dhimanayo dhalashadii wax diidi kara ma laha dhimashadii wax diidi kara ma laha gabowgii wax diidi kara maaha programkaasaa kugu socdo mana diidi kartid markaa ilahay waa idin dilaa kadib subxana wa taala uma yumiitukum waa idin dilaa uma markaa kadib haddana yuxyiikum waa idin soo noolaynayaa oo akhraa laydin soo nooleynaya bacthigii qiyaamaha ayaa laydin soo nooleynaya oo ilahay qubuurta idinka soo saaraya uma ilayhi alla xaggiisa turjacuun laydin celinaya marka waxaa laydinka soo nooleyntaan waa tii aakharo marka inta kale waaba ujeedna inaan jiri jirin waa ognahay markaan dhalanina waa jirnaa waa joognaa ilmaan noqonay waa programkaasaa nagu socdo markaan dhimano haddana in nala soo nooleyna maxaan u diidaynaa oo ilaahay u kufrinaynaa subxaana wa tacaala kayfa takfuruuna billah se ilaahay u kufrinaya subxaana wa tacaala waxaasoo programka ayaa kugu socda ma diidi kartid waa sida ilah yihi subxaana wa tacaala allah aayad kale ku yihi fi suurati alwaaqica aakhirkeeda allah wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala yani falowlaa in kuntum gayra madiniin tarjicuunaha falowlaa idaa balagat ilxulquum naftii haddii halkaa timaado wa antum xiinaidin tanduruun idinkana aada fiirinaysaan qofka naf baxayo ujeedaan indhaha ku haysaan wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun innagaana idinkaga dhow laakiin uma jeedaan qofka annagaa idinkaga dhow dadkiinaan dul tuuran annagaa idinkaga dhow ilah leh subxana wa tacaala markaas alla wuxuu leh subxaana falowlaa in kuntum gayra madiniin tarjicuunaha in kuntum saadiqiin haddaynan ahayn kuwa la abaal marinayo oo inta lasoo bixiyo la jazaynayo oo naar iyo jana loo kala kaxayn haddaydan ahayn maa joojisaan qofka kan oo dhimashada ka joojisaan oo dhimashada u diidaan tarjicuunaha in kuntum saadiqiin faama in kaana min almuqarabiin faruuxun wariixaan wajanatu naciim waama in kaana min asxaabi ilyamiin fasalaam waxaa ku xigo ilahay noo sheegay subxana wa tacaala intii ka horreysay waaba aragnaaba indhehinaan ugu jeedna see u inkaraysaa marka inta dambe iyo soo bixinta qiyaamaha in lasoo bixinayo see u inkaraysaa ilahi subxaana wa tacaala wuu noo sheegay waana xaqiiqa waxa ilahay kuu sheego caza wajal uma ilayhi alla xaggiisa turjacuun laydin celinayaa liljazaai walxisaab in laydin xisaabiyo in laydin jazeeyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa laydin celinaya huwa ilaahi aladii waa allaha khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi dhulka waxa yaallo oo dhan waxa dhulka yaallo oo dhan waa ilahay idin jamiican dhammaantiis waa towkiid waa lagu sii adkeynayo uma markaa kadib istawaa ilaahay wuxuu u qasday ila samaai samada fasawaahunna ilaahay wuxuu ka abuuray samooyinkii sabca samaawaat 7 samo wahuwa ilaah bikuli shayin wax kastana caliim waa kii u cilmi leh allah caza wajal huwa ilaahi aladii khalaqa lakum idiin abuuray waaye maa fi lardi dhalka waxa yaallo jamiican dhammaantood aayadda waxaa laga qaatay wax kastoo arlada saaran ilaahay adinkuu idiin abuuray bini aadamka haddaad tihiin adinkana maxaa laidin abuuray cibaada ee ilahay idiin abuuray subxana wa tacaala marka aslu ashyaa alibaaxa wax kastoo adduunka saaran dushiisa xalaalay noo yihiin ilaa wixii ku soo arooray aayad quraan iyo axaadiis inay xaaraan yihiin ma ahay ilaa maa warada annasu fii taxriimi
marka shaygan waa xalaal, shaygan waa xalaal, shay kasta waa xalaal adduunka dushiisa saaran, xalaal noo yahay. ilahay anagu waa noo abuuray subxaana watacaala, ilaa intii nalaga reeba nalaga xaaraantinimay maaha. qul tacaalow atlu maa xarama calaykum rabukum, kaalaya waxaan idin akhrinayaa inta laydinka xaaraantinimeeyey. ilahay lehi subxana watacaala inta laydinka xaaraantinimeeyey. marka waa shayga waa saas. uma istawaa ila samaai, ilaahay samadiibuu u qastay, fasawaahuna ilahay wuxuu ka abuuray 7 samaawaati, samado 7 ah ayuu ilaahay ka abuuray. samooyinka axaadiis kala soo aroortay in ay 7 yihiin, mid kasta waxaa inay iskor saaran yihiin 7 samaawaati dibaaqan ayaa ilaahay noo sheegay subxana watacaala. waxay alla noo sheegay caza wajal in ay in xajmigooda uu yahay intii loo socdo 500 sano, inta u dhaxaysa samo iyo samo kalena inay tahay 500 sano inta loo socdo. ilahay saasuu ka dhigay subxaana watacaala. wahuwa ilaahay saas ay tahayna bikuli shayin shay kasta caliima waa kii u cilmi leh, wax kastana ilahay waa og yahay, wax ka qarsoon ma leh. laa yaczubu canhu mithqaalu dara fi samaawaati walaa fi lardi, ilahay kagama qarsoona samada iyo arada mithqaala dara kagama qarsoon. darada waa atamka yarka ah. atamkaas waa waxa adduunka ugu yar, maadada waxa ugu yar, isagaas kama qarsoono ilaahay. wax ka yarna kama qarsoono, wax ka yar ma jiraan. ha qeybaha atamka samaysan yahay waxaa ka mid ah yani gudaha nucleuska waxaa ku jira dhahaan yani protons iyo neutrons. waxaa ku wareegeysana circleska waa electrons. marka electronka waxa socdo oo ordaha waa negative, protonkana waa positive, wuxuu ku jira nucleuska. then neutronkana waa intoo kalesna waa dhexdhexaad isaga, waxa isjeedinaya. marka qeybahaas yaryarka xataa ilahi waa ogyahay subxaana watacaala. laa yaczubu canhu mithqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lard walaa asqara min dalik walaa akbara ila fi kitaabin mubiin. ilahay weliba waa qoray, waa tiro kooban yihiin, diiwaanay ku jiraan, bogay ku jiraan. waid qaala rabuka lilmalaa'ika, meesha waxaa laga galaa qisada annabi aadam ilahay markuu abuurayo subxaana watacaala, isagii malaa'igta wixii dhex maray ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana watacaala. wadkur xasuusa id goor qaala uu yihi rabuka rabiga lilmalaa'ikati, malaa'igtii rabbi wuxuu ku yiri inii aniga jaacilun waxaan ahay mid abuurayo fi lardi dhulka dhexdiisa khaliifatan, khaliif ayaan ku abuuraya, mid iga khaliif noqda ayaan ku abuuraya. qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu ma yeelaysaa fiiha arladii dhexdeeda man duul yufsidu fasahaadiya fiiha arlada, miyaad ku abuureysaa dad adduunka fasahaadiya, miyaad ku abuureysaa? wayasfiku dimaaa, dhiigna ku daadiya. fasaadka waxa ugu horeeyo dhiig la daadiyo oo dulmi lagu daadiyo, wax ka horeeya ma jiraan. wanaxnu anagana nusabixu aan tasbiixsanayno bixamdika ammaantaada, wanuqadisu aan ku daahirinayno laka adiga, miyaad saas haddana samaynaysaa? annagaa kuu tasbiixsanayno, ku caabudayno, amarkaada aan diidayno, ku weyneynayno, ma duul saasaad keenaysaa aradii ku abuureysa. qaala wuxuu yihi ilaah caza wajal inii aniga aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun, waxaydaan ogeyn ayaan ogahay. inii aclamu maa laa taclamuun, waxaydaan ogeyn ayaan ogahay buu ilahi subxaana watacaala. wacalama aadama alasmaa, waxaa malaa'igta say ku ogaadeen in dhiig lagu daadin doono arlada oo bini aadamkan uu carada fasahaadin doono. yani say ku ogaadeen? waxaa la yihi waa loo sheegay, ilahay baa u sheegay subxaana wataala dabeecadihiisa iyo waxa lagu sameyn doono iyo ayaa ilaahay u sheegay subxaana watacaala. saasay ka qaateen. ilahay baa u warramay marka hore sifaadka ay yeelan doonaan, qaar fiican oo dhiig daadiya, qaar saalixiina, intaba waa jiraan. marka alla wuxuu ku yidhi waxaan ogahay waxa aydan idinka ogeyn ayaan ogahay bu alla subxaana watacaala. wacalama aadama alasmaa, ilaahay wuxuu rabay inuu tusiyo fadliga nebi aadam. wacalama wuxuu baray ilaahay aadama aadam alasmaa magacyada kulahaa dhammaanteed. uma markaa kadib
wuxuu baray ilaahay magacyada ayuu baray asmaa kule magacyada shay kasta asmaa almusamayaat waxyaalaha jiro magacooda musama waxaa la yidhaha waxa shayga yani ismigana waa magaciisa marka wuxuu baray shay walba magaciisa ayuu baray shay walba adduunka waxaan magac lahayn ma jiraan shay kastoo soo qaada magacuu leeyahy xataa haddii cusub oo lasoo saaro hadda oo la ogaad magaca loo bixinayo dabaylaha waatan le hadda yani cabla iyo yaa laleeyahy shay biologiga ku cusub magaca loo bixinaya geedaha cusub oo la helo magaca loo bixinaya waxaan magac lahayn adduunka ma jiro nebi aadan waxaa la baray shay kasta magaciisa la baray cilmi aada u weyn cilmi aada u weyn mararka qaarkood maba la karaya magacyada qaarkood yani botanic oo kale geedaha magacyadooda iyo yani kimika kasta oo organica kasta magacay leedahay shay kasta magaca loo bixinayo term uu leeyahay magac bixina marka waxaas waa la baray nebi aadam kulli ilaa yowm alqiyaama waxa shay la magacaabi doono o dhan ayaa la baray waa cilmi aada u weyn cajiib waa dictionary dhan waay marka ilaahay markuu baray uma caradahum wuxuu usoo bandhigay waxyaalihii ayuu usoo bandhigay cala malaaika malaaigta usoo bandhigay faqaala wuxuu yihi ilaahay ambi-uunii ii sheega biasmaai haaulaai kuwa kan magacyadooda in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega qaaluu waxay dhan subxaanaka ilaahu hufnaantaade laa cilma cilmi malihin lana anaga ilaa maa calamtana inta aadna bartay ma ahe inaka adiga anta adiga ilaahow alcaliimu ilaah cilmi badanaad tahay alxakiimu ee xikmad badan sheegaa la yidhi waxyaalaha loo soo bandhigay waxaa la sheegan magaciisa sheega ma naqaanay dhehen ilaah bay hufeen waxay ilaah aqoon ma lihin intaadna bartay ma ahe cilmi ma lihin waxay sheegeen iyaga inaysan cilmi lahayn insha allahu tacaala halkaa hanoo jooga cashirka waxaan isugu soo noqon doonaa cashirka kale wallahu subxaanaه watacaala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
kan daawwachuu jirtu kun TBN.